heesaha iyo xukunka loogu talagalay ama ay leeyihiin dhegaysiga heesaha. heesuhu waxay ka mid yihiin waxyaabaha qalbiga qalaliya, waxay ka mid yihiin waxyaabaha ilaahay diintiisa dadka ka durjiya, waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha shayaadiinta farax geliya, ilaahayna uu ka caroodo subxaana wa tacaala. sidaa darteed waxaa loogu talagalay bulshada muslimiinta ah oo dhan inay iska ilaaliyaan kana fogaadaan heesaha iyo dhibaatooyinka ay leeyihiin. ilaah kitaabkiisa munazalka waxa uu ku yiri wa min annaasi man yashtarii, dadka waxaa ka mid ah qola soo iibsata oo gadanaysa lahwa alxadiidi, xadiid midka lahwiga ah, waxa lagu daahdaaho oo lagu maaweelo oo xadiid iyo sheeko ah ayaa ka mida dadka kuwa markaa ka dayac mushtara ama markaa soo iibsada liyudilla can sabiilillaahi, si ay dadka uga dhumiyaan ilaahay jidkiisa. meeshay qur'aanka ka aqrin lahaayeen ayay heesaha qaadaan, meeshay diinta iyo wacdiga ka dhegaysan lahaayeen ayay muusiqa iyo heesaha ka dhegaystaan liyudilla can sabiilillaahi bigayri cilmin, ogaal iyo cilmi la'aan. waxay sidaa u yeelayaan waa diinta alle oo ay si fiican u fahmin, waa caqligooda iyo qalbigooda oo aan diinta ka daadegin. wayattakhidahaa huzwa, waxayna ka dhigtaan arrintaa arrin huzu ah, wax lagu daaho oo lagu jeesjeeso ama markaa lagu lahawsado. ulaa'ika lahum cadaabun muhiin, dadka sidaa wax yeela waxa ay leeyihiin cadaab muhiin ah oo dulli u saaxiiba, ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. in walba oo heese ku dadaasha, qolo walba oo soo iibsata cajalooyinka ay ku duuban yihiin, qolo walba oo u riyaaqda ama jeclaata ama mar walba soo dhowaysa, lahum cadaabun muhiin, waxaa u sugnaaday cadaab muhiin ah, cadaab dulli iyo dhibaato u saaxiiba ayay leeyihiin. wa idaa tutlaa calayhi, waxaa kaaga daran dadka heesaha ku dadaala, mar walba waxay diidaan aayaadka ilaahay, xaqa marka loo sheego iyo diinta marka loo bayaaniyo ma ogola. ilaah wuxuu yidhi wa idaa tutlaa, haddii lagu akhriyo calayhi kaa korkiisa, waa midka heesaha u riyaaqa, midka soo dhoweeya oo jecel aayaatuna, aayaadkeenna haddii lagu aqriyo meeshuu ka raaci lahaa, u soo dhowaan lahaa, diinta alla taageeri lahaa, wallaa mustakbiran, waa jeesanaa, wuu ka jeesanaa asagoo mutakabbir ah, asagoo isweeweynaysiinaya oo mar walba raba inuu diinta alla ka kibro. kaan lam yasmacahaa, waxaad u malaysa sidii asaguusan aayadaha alla maqlin, ileen dhegaha ayuu ka qufula yahay, indhaha ayuu ka la'yahay, waxaa ka maqan hidaayadii iyo wixii rabbi u dhowayn lahaa oo aayadihiisii jeclaysiin lahaa. markastoo aayadaheenna lagu aqriyo wallaa mustakbira, waa jeesanaa oo diinta alla ayuu ka jeestaa, heesahow aada, axaadiista ayuu ka jeestaa, fanaaniintuu u riyaaqaa, nebiga sunnadiisa ayuu ka leexdaa, waxyaabaha ay fanaaniinta sameeyeen ayuu raacaa, rasuulka ayuu taariikhdiisa iyo sunnadiisa iyo siiradiisa baranin. laakiin abwaaniinta iyo fanaaniinta ayaa laga yaabaa ama badanba inuu wax badan taariikhdooda iyo waxa ay yihiin uu ku dadaalo. aayaad alla marka loo aqriyo wallaa mustakbiran, kaan lam yasmacahaa, waaba sidii asagoon aayadaha alla maqlin, kaanna fii udunayhi waqaraa, dhegihiisana inay ku sugan yihiin culays iyo dhegajig. fabashirhu bicadaabin aliim, waxaad ugu bishaaraysaa kaa cadaab xanuun badan, sida uu heesaha u dhexgala jahannama loo dhexgeliya, sida uu diinta u naco rabbi u naca, sida uu xaqa uga leexday ayaa jidka mustaqiimka looga leexiyaa. haddaba mar walba oo alle agtiisa uu ka leexdo iyo xaqana uu raaci waayo, xaaladiisana ay sidaa noqoto, waxaan ugu bishaaraynaynaa kuwa cadaab aliima oo xanuun badan. haddaba walaalayaal, aan iska ilaalina heesaha. mujtamaca maanta jira badankiisa waxay aad ugu dadaalaan ama ay raacaan waxa lagu magacaabo fanniga iyo heesaha. habeen iyo maalin ayay dadku ku dhex socdaan, meel walba oo la aado iyo meel kastoo joogto maanta waxa camimay waxa lagu magacaabo heesaha. sidaa darteed ayaa quluubta dadka muslimiinta badankoodu ay noqotay maanta heesahana ay ku noqotay sida nafsada ay uga soo baxda iyo neefta oo kale.
maca daalika waxaad arkaysaa jiilka muslimiinta ah ee maanta jooga inay noqdeen kuwa heesaha u riyaaqa oo raaca oo mabda ahaan u aaminsan waxa lagu hormaro oo ilbaxnimaduna inay tahay macnaha heesaha. muslimiinta maanta joogta jiilkooda haddaad su'aasho oo aad mid kamida weydiiso, ama gabdhaha yaryarka ah ee da'da yare soo koraaya iyo wiilasha saasoo kale ah, haddaad weydiisa maxaad doonaysaa inaad mustaqbalka noqoto, maxaad rabtaa inaad mustaqbalka ku soo baxdo, wuxuu leeyahay uriidu an akuun, waxaan rabaa inaan noqdo fanaanan mashhuuran, nin fanaana oo caan ah, najmi saatica oo bannaanka yaala iyo xidiga fanaaniinta inaan noqdo ayaan jeclahay. taasuu kugu jawaabaa. waa shay aad looga naxo, waa arrin murugo leh inay muslimiinta xaaladoodu sidaa noqoto in badan oo ka mid ah. haddaba walaalayaal, heesuhu waa xaaraam. waxay ka mid yihiin waxyaabaha alla diintiisa qofka ka fogeeya. waxay ka mid yihiin waxyaabaha qalbiga qalajiya oo diinta ilaahay mar kasta kaa durjiyee. walaalayaal, ka fogaada oo ka durqa, ha raacina oo ha dhegaysanina. rasuulka sala allahu calayhi wasalam wax badan ayuu dadka uga digay. war heesaha dhegaysigoodu waa shay aad iyo aad u foolxumo ah, waa shay dhibaato badan oo rabbigeen noo diiday. war diinteenna inaan raacnaa nala amray, aayadaha qur'aanka inaan ku dadaburno, oon raacno, oon aqrino, oon ku khushuucno, indhaheena ay biyo uga soo qubtaan. maca alasaf waxaad arkaysaa maanta qur'aanka marka la aqrinaayo waa ku sheekaynaa ama maba dhegaysanaba. marka qur'aanka la daaro dadku way ka kala ordaan, heesaha marka la daaray u soo riyaaqaan, waa u khushuucaan, indhahooda ayaa dadka gobolka midabiya uga yimaada heesaha dhegaysigooda dartii. ilaahayna wuxuu yidhi aladiina ittakhaduu diinahum lahwan walaciba, dadka qiimaha aan lahayn, ilaahay agtiisa aan khayrka iyo wanaagga u oolin, cadaabka loogu talagalay in la geliyo oo mar walba jahanamo loo diyaariyey, waa kuwa diintooda ka dhigtay lahwiga iyo cayaarta ayuu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. diintooda ayay lahwi ka dhigeen, wax lagu daahdaahay ka samaysteen. aladiina ittakhaduu, waa kuwa ka samaystay diinkooda lahwiga iyo waxyaabaha lacibka iyo cayaarta ah. yay ahaayeen dadka laga hadlaayey, waa dadka naarta la geliyey, waa qolada asxaabu naarta ah. ileen ilaahay ayaa yidhi wanaadaa asxaabu nnaari asxaaba aljanna. dadka asxaabu naarta ah ee naarta asxaabta u noqday waxay u soo naadinayaan dadka jannada ku jira. jannada waxaa galay dadkii aayadaha alla aqriyey, diinta raacoo ku dhaqmay, xaqa fuliyey oo diinta kor u qaaday, jannaday galeen. dadkii heesaha ku raaxaysan jiray, dadkii heesi jiray iyo kuwii alifi jiray iyo kuwii jeclaa intaba cadaabkay galeen. qoladii cadaabka galay ayaa kuwii jannada galay u soo naadiyey. waxay dhaheen an afiiduu calaynaa min almaa, war kulayl daran ayaa naarta nagu haaye, biyo korkeenna ku soo daadiya. war jahanamaan ku jirnaa annaga, dhagaheenna ayaa nasaas iyo rasaas naareed lagu shubay bacdamaan heesaha iyo waxyaabaha kale ugu raaxaynay. qalbigeenna ayaa xumaan iyo naar ay cuntay, ileen naar ayaa jirta loogu talagalay inay qalbiga cunto. xutama ayaa lagu magacaabaa. wamaa adraaka ma alxutama, naarullaahi almuuqada allatii tattalicu cala alaf'ida, waxay daalacataa quluubta. qalbigii heesaha lagu xifdiyey, heesaha lagu kaydiyey, heesaha lagu jeclaaday ka daalacataa, taasay cuntaa ayuu rabbi tilmaamay subxaana wa tacaala. haddaba qalbigeenna ayaa sidaa ah ee ahluljanne biyaha qabowgaa nagu soo daadiya. an afiiduu calaynaa min almaa aw mima rasaqakum allah, ama wixii ilaah idinku arsuqay oo xoolaha iyo timaarta jannadaa nagu soo daadiya, war kor nooga soo rida. saasay leeyihiin dadkii ahlu naarka ahaa. aw mima rasaqakum allah, ama wixii ilaahay idinku quudiyey. ahlu jannaha maxay dhahayaan? qaaluu ina allaha xaramahumaa cala alkaafiriin, ilaahay waa ka xaaraantinimeeyey biyaha jannada iyo risqiga jannada kaafiriinta korkooda. yay yihiin dadka? waa aladiina ittakhaduu diinahum lahwan walaciba, waa dadka diinkooda lahwi, dhaan iyo cayaar
iyo lacib ka dhigtay oo waqarrathum alxayaatu addunyaa nolosha adduunka ay kedisay. noloshan adduunka ayaa sirtay, diinta alla ayay ka leexisay, xumaanta ayay u soo bambaxeen, heesaha ayay jeclaadeen, riwaayadahay camireen oo masaajidaday qaraabiyeen. qalbigooda diin alla laga tirtiray oo heese laga buuxiyey. waqarrathum alxayaatu addunyaa nolosha adduunkana ay mashquulisay. falyawma nansaahum maanta waa iloobaynaa ayuu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. cadaabkaa lagu hilmaamaa kamaa nasuu liqaa'a yawmihim haadaa, say u iloobeen maalintan la kulankeeda. maalintan in lala kulmaayo ayay inkireen, ayay iloobeen. say u hilmaameen diinteena ayaan maanta cadaabka ugu iloobaynaa. iyo wamaa kaanuu biaayaatinaa yajxaduun, ahaashihii ay ahaayeen kuwa aayaadkeenna inkira ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. aayadaha allay inkireen, diinta allay ka leexdeen. walaqad ji'naahum bikitaabin fassalnaahu calaa cilmin, waxaan ula nimid kitaabkaas soo faslinaya oo caddaynaya shay walba, cilmi iyo hanuun ku sugan, naxariisna mu'miniinta u ah, hudan waraxmatan liqowmin yu'minuun. qoomka iimaanka leh ayuu hanuun u yahay, qoomka iimaanka leh ayuu naxariis u yahay kitaabka. iika way ka tageen oo waa raaci waayeen, mabaadi'dii diinta ayay ku bedeleen heeso, waxay ku bedeleen cayaaro, waxay ku bedeleen geeraaro iyo waxyaabo kaloo rabbi xaaraantinimeeyey. annaguna kitaab cad wax walba u caddeeya ayaan markaa ula nimid. ilaah muxuu yidhi oo kale, hal yanduruuna ilaa ta'wiilah, ma waxay sugayaan dadka heesaha ku raaxaysta, dhagahooda ka buuxiya, diinta alla nacay oo ka tegay, ilaa qur'aanka iyo kitaabka ta'wiishiisa maahane. waxa uu ka hadlayay oo qiyaamo ah maahane, ma wax kalay sugayaan. war maxay diinta u raaci waayeen, maxay xaqa u taageeri waayeen, maxay salaada u baran waayeen oo ay u tukan waayeen. yowma ya'tii ta'wiiluhu, maalinta ta'wiilkiisa uu imaanayo, yaquulu aladiina nasuuhu min qabl, kuwii horay u iloobay oo kitaabka alle ka tegey waxay dhahayaan, qad jaa'at rusulu rabbina bilxaqi, waxaa noo yimid rasuul rabbigeen oo xaq wata, diin noo sheegay, heesuhu inay xaaraam yihiin noo sheegay, waxaan inay mamnuuc yihiin rasuul noo sheegay ayaa horay noogu yimid. waa raaci weynay, waa ku dhaqmi weynay. ee fahal lanaa min shufacaa, wax gargaara ah, wax shufaca ah ma leenahay oo fa yashfacuu lanaa, annaga markaa noo shafeeca oo noo ergeeya ma noo suga yihiin. diinta allaan diidnoon ka leexanay, xaqaan inkirnay, waxaan raacnay wixii shayaadiintu ay keeneen. ee fahal lanaa min shufacaa, kuwa shufaca ah oo ergeeya oo wax noo tara ma helaynaa. oo fa yashfacuu lanaa, ay maanta wax noo taraan, ay maanta alle xaggiisa nooga shafeecaan. ow nuraddu fa nacmala, amase celitaan ma helaynaa, adduunka naloo celiyo. wallaahi fanaaniin damba ma jeclaan lahayn, heeso damba ma raaceen oo dhegaheenna uma dhigeen. ee fa nacmala, waxaan camal qaban lahayn hayra aladii kunnaa nacmalu, wixii aan ahayn kuwa sameeya kuwa aan ahayn. heesahaan ka tegi lahayn oo diitaan raaci lahayn, xumaantaan ka tegi lahayn oo samaantaan samayn lahayn, rasuulkaan baran lahayn oo fanaaniintaan ka tegi lahayn. hayra aladii kunnaa nacmal, ilaah muxuu yidhi, qad khasiruu anfusahum wadalla canhum maa kaanuu yaftaruun, nafafyaalkooda ayay kuwaa khasaariyeen, waxaa dhumay wax allaala waxay ku iftaroonayeen. ee walaalayaal dadaala, war diinta ilaahay raaca, war xaqa ku socda oo in badan heesaha dhegaysta, heesaha dhegaysigeeda ka taga oo diinta alla dhegaysta subxaanahu wa tacaala. war heesaha oo la dhegaysta waa mamnuuc. war dadka da'da yar iyo gabdhaha da'da yar ee soo baxow, war shabaabka cusub oo aad u jecel heesahow, war ilaahiina ka cabsada. dhaga walba oo heese lagu dhegaysto, rasaas naareed iyo rasaas naareed oo la dhalaaliyey ayaa dhagaha looga shubaa, sida rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam. haddaba heesuhu waa shay mamnuuca oon la ogolayn, waa shay ilaahay xaaraantinimeeyey subxaanahu wa tacaala. nabiila cubayd gabar la yidhaahda oo fanaanad ah ayaa xaram ka timid ayadoo damacsan ama rabta inay cumraysato. way cumro qaadatay ayaa la yidhi, jaraa'idada ayaa wareystay gabadha noocaasa ee nabiil cubayd ah. waxay weydiiyeen bacdamay cumro u timid
oo ay rabto inay cimraysato maca daalika haddana ay cumradii qaadatay in qadiyadda ama dhinaca heesaha ay jiraan arrimooyin qiimo leh oo u tilmaamaya ama u fasaxaaya inay markaa heesto amase ay heesuhu xalaal yihiin. arrin noocaasa iyo waraysiga ayaa la siiyey. waxay tiri intaa ka gadaal qadiyada iyo arrinta heesaha waa arrin waadix ah oo sida qoraxda markaa u cad. rasuulka alla ma ahayn ayay tiri mid kari kara ama awooday amase kari kara inuu xaaraantinimeeyo heesaha iyo muusiga iyo waxyaabaha kale ee noocaas ah. maca daalika ayay fatwo bixisay, isla markii ayay jawaabtay waa jur'a iyo dhiiranaan ay nebiga ku dhiiran tahay. xaaraan ma aha ayay tiri oo nebigu ma xaaraantinimaynin muusiqa iyo heesaha iyo waxyaabaha lamidka ah. wahuwa aladii yaquul, rasuulka sala allahu calayhi wasalamna waa midka yidhi ya'tii zamaanun, zaman ayaa imaan doona oo soo maraya cala annaasi yastaxiluuna fiihi alxira, dadku ay xalaalaysan doonaan. xirada waa zinadee iyo walxariira, xariirta iyo walqamr, khamrada ay xalaalaysan doonaan iyo walmacaazifa, macaazifta waa muusiqada iyo waxa lamidka ah oo dhan. oo wayashrabuuna alkhamra, khamrada ay cabi doonaan wayusamuunaha bikayri ismihaa, magaceeda magacaan ahayna lagu wici doono. zamanka ayaa la gaarayaa ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam. gabadhaa shayaadiinta ah waxa ay jawaabtay fiiri, waxa ay ku hadashay fiiri. maca daalika dadka maanta waxay u maleeyaan in diintana si qiyaas ah loo qabsado gooni ah, xaaraantana gooni ahaan loo wato. waxaad arkaysaa fanaanada way tukanaysaa, isla markii masraxay istaagaysaa, khamraday cabaysaa, maca daalika waa soomaysaa. arrimooyinka ayay ku socdaan. haddaad weydiisood arrintaa uga hadasha waxay ku leeyihiin mar waa rabbigee marna waa qalbigay. xaalada noocaas ma ahe yaa ayuha aladiina aamanuu udkhuluu fi silmi kaafa, war dadka iimaanka lahow islaamnimada soo gala ayadoo kaafa ah, idinkoo wada jira, ayadoo wada dhan ha raacina khuduwaadka iyo tallaabooyinka shaydaanka. shaydaanku cadow ayuu idin yahay, cadaawanimadiisu ay caddahaye. wuxuu leeyahay waa ogahay, ilaahay waxa uu igu leeyahay waan tukadaa, anoo yar ayaan tukan jiray, laakiin maa aqdar an asbir, ma awoodi kara inaan ka sabro waxyaabaha muusigaan dhagaha ugu raaxeeyo, waxyaabaha heesaha ah oo aan raba inaan qalbigayga ku dejiyo. war heesaha qalbiga laguma dejiye, dikriga allah qalbiga lagu dejiyaa. dadka iimaanka leh oo watatma'in ay ku xasishay quluubtooda dikriga ilaahay, alaa bidikri illaahi tatma'inu alquluub. ilaahay dikrigiisa, ilaahay diintiisa iyo qur'aankiisuu dikriga ku xasilaa. dhagahaan ugu raaxayn ayaad maqlaysaa maanta. war haddaad dhagaha heesa ugu raaxayso, rasaasnaareedaa lagu shubaa. ee ilaahaaga ka cabso subxaana wa tacaala. anigu ma kari kara inaan ka sabro ha dhihin, ee macaasida alla ka sabir. war waxa uu rabbi kuu diiday ka fogow oo ka dhaqaaq. wanaag iyo sharaf iyo khayr ayaad gaaraysaa. rabbigaa u adeegsa xaqa, rabbigaa ka bari mar walba inuu ku waafajiyo diinta ilaahay dhabnimadeeda oo markaa ku tusiyo. rasuulku sidaa ayuu yidhi salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. zaman ayaa dadka soo maraaya, zaman ayaa la gaari doonaa aakhiru zamaanka. waxaa la gaarayaa zaman dadku ay xalaalaystaan alxira, waa zinadee. zinada maanta waxaad u malaysaa shay mubaaxa oo kale. guryo ayay leedahay, calamo ayaa u taagan, magacyo dhowra ayaa loo bixiyey. xaalada noocaasa waa xaaraam. aakhiru zamaanka dad noocaasa ayaa imaan doona ayuu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam. ya'tii zamaanun cala annaas yastaxiluuna fiihi alxira wahuwa zinaa, waa zinadaa loola jeedaa, iyo walxariira, xariirta ayay banaysan doonaan, iyo walkhamra, khamrada ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. fanaaniintii abwaaniinta khamrada kama foga. mar allaala marka ay jilaa yihiin oo waxyaabo ay jilayaan, meelo ayay tagaan, hoteelo ayaa la dejiyaa, dacaaro iyo waxyaabo xun ayay ku sameeyaan, khamrada ayay ku cabaan. arrimooyinka noocaasa waa xaaraam. ee rabbigiina ka dhaqaa, rabbigiina u dhowaada oo xaaraanta iyo heesaha ka durqa.
ilaah wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru waalmaysiru waalanصaabu waalazlaam rijsun min camali الshayطaan fاjtanibuuhu lacalakum tuflixuun. war dadka iimaanka lahow, war dadka rabbigood rumeeyayow, war dadka ani i aaminsanow, khamrada, qamaarka, waa maysarkee, waxyaabaha lagu magacaabo aslaamka iyo kulli waxyaabaha lamidka ah kulli ka dhaqaaqa. yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru waalmaysir waalanصaabu waalazlaam. sanabyaalka iyo gamuunada iyo waxyaabaha ay ku faaliyo khayr iyo shar ogaan jireen kulligood waa rijsun min camali الshayطaan, waa qurun oo camalka shayطaanka ka mid ahe fاjtanibuuhu, ka fogaada lacalakum intaa ka gadaal ayaad mudan tihiin in laydin naxariisto ood liibaantaan ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. war khamrada ka dhaqaaqa oo ka durqa, waxay ka mid tahay rijsi oo camalka shayطaanka ka mid ah. ka fogaada lacalakum tuflixuun, inaad liibaantaan ayaad mudan tihiin ayuu yidhi ilaah. inamaa yuriidu الshayطaanu, shayطaanku wuxuu rabaa an yuuqica baynakum alcadaawata waalbagdaa, inuu dhexdiina ka abuuro cadaawanimo, isku caroosho iyo baqdi fi lkhamri waalmaysiri, oo khamrada iyo qamaarka markaa ah, wayasudakum can dikri illah, intaa ka gadaal uu idinka jeediya dikriga ilaahay iyo wa can isalaati, salaada xaggeede, fahal antum muntahuun, kuwa ka haraya ma ihidin miya? war wax walba oo kaa jeedinaya dikriga alla ka tag, war wax walba oo salaada kaa mashquulinaya iska dhaaf oo ka fogow. wa atiicu allaha wa atiicu rasuul, ilaahay iyo rasuulkiisa ateeca, waxdaruu, war digtoonaada oo cadaabkooda iska ilaaliya. war cadaabka nebiga idinkaga digay oo alla u soo sheegay iska ilaaliya. fa in tawallaytum, haddiise aad jeesataan oo diinta iyo wacdiga aad ka tagtaan, heesaha iyo baatilka aad raacdaan, faclamuu annanaa calaa rasuulina albalaaqu almubiin, waxaad ogaataan rasuulkeena uun korkiisa inay tahay gaarsiin cad, inuu idin soo gaarsiiye xaqa, inuu idin sheega ayaa korkiisa ah. ee arrinta noocaasa ogaada. war salaada ayay maanta heesihii naga mashquuliyeen, waxyaabaha yaryarka ah iyo lacagta yar ay gabdhuhu helaan, cajalooyinka heesahay ku duubtaan, habeenkii ayagoo dhegaysanayay ku hurdaan, hawsha guriga markay qabanayaan way daartaan oo ayagoo la heesayay sidaa yeelaan. war sidaa ha yeelinee qur'aanka daarta. war idinka markaad seexanaysaan aayadaha alle ayadoo idin daaran tahay ku seexda. war wacdiga ilaahay iyo diinta alla ku jiifta. mar allaala marka aad seexanaysaan adkaarta laydinkugu talagalay akhrista. war gabdhuhu maanta ayagoo la heesaya fanaaniintay ku ag seexdaan ama ay ag hurdaan, saasay hurdadu uga timaadaa. rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka aad seexanaysaan oo damacdaan inaad firaashihiina aadaan wayse qaata ayuu yidhi salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. sida salaada loogu wayse qaato oo kale jambiga iyo dhinaca midigtaa u seexda. intaa ka gadaan ilaahay adkaarta uu idinkugu talagalay akhrista. waxaad dhaqdaan ilaahayow waxaan u dhigayaa oon dhinacayga dhulka ku dhigayaa waa magacaagii awooddaada. ilaahayow taa ayaan ku seexanayaa ee in amsakta nafsii, nafsadayda haddaad celiso waa suuragal saan u hurdo inaynay sii soo noqonin nafsada oon saas ku ruux baxo oo xayaatada saas iiga tagtaa suuragal ahee. in amsakta nafsii, nafsadayda haddaad qabatood celiso u naxariiso. ilaahayow jannada ii geli, ilaahayow cadaabka iiga ilaali, haddaad ii soo dirtana allow ii ilaali sida addoommada saalixiinta loogu ilaaliyo. ileen haddii waaga beryo ani bannaankan aadaa, suuqan mara, meel walba ilaahayow heesaa ka daaran, goobihii ganacsiga dhammaan heesaa ka wada daaran, meelihii wax laga cabayay heesaa ka wada daaran. allow ii ilaali nafsadayda haddaad soo dirto, ilaahayow mid ku fidnooba ha iga dhigin. saa ku ducaysta ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam. nasiib wanaag heesaan ku seexanaa, cajalada ayadoo inoogu jirta ayaan ku hurugnaa. war ka warrama saas hadday xayaatada nooga baxdo, saas haddaan ku dhimano. rasuulka sala allahu calayhi wasalam aad iyo aad ayuu rabbi uga baryi jiray
xusnul khaatima iyo khaatimada wanaagsan. ilaahay ayuu ka magangeli jiray suu'ul khaatima iyo khaatimada markaa xun. war qof walba waxa uu caado ka dhigto ama uu mar walba ku socdo ayuu ku socdaa. taas ayuu ku barbaaraa, taa ayuu ku duqoobaa oo laga yaabaa inuu ku dhinto. war rabbigiina ka cabsada oo qalbigiina heesaha ka bixiya. war dhegihiina ha ku dhegaysanina. walaalayaal diinta ilaahay qaata. afa min hada alxadiidi tacjabuun. qur'aankaad maad la yaabantihiin. watadxakuuna walaa tabkuun. ma ku qoslaysiin qur'aanka marka la aqrinaayo? ma ku oynaysiin miya wa antum saamiduun idinkoo gaafiliin ah oo geeraaraya oo heesaaya oo diinta alla ka tegay? war sidaa ha yeelina ee wasjuduu lilaahi wacbuduu. rabbigiin caabuda, ilaahay u sujuuda subxaanahu wa tacaala. sidaa ku dadaala ayuu rabbina dhahay subxaanahu wa tacaala. haddaba xaaladdu waa sidaa. caadaha ka dhiganina heesaha dhegaysigooda, caadaha ka dhiganina ee ilaahiina ka cabsada subxaanahu wa tacaala. arrintaasaa khayr iyo wanaag lagu gaaraa. war haddaan badina dhegaysigooda, haddaan badina inaan xifdino, haddaan badina inaan qalbiga gashano, waxaa suuragal ah xaaladaa inaan ku dhimanee ha yeelina. war sidaa yaa la yeelin. ileen qof walba waxa uu ka caado dhigto oo mar walba uu sameeyo ayuu ku dhintaaye. war khaatimada wanaagsan aad bay u fiican tahay. dadka marka ay sakaraadayaan oo kelimadooda midda ugu dambaysa ay noqoto laa ilaaha ila allah, jannaday gelaayaan. rasuulkaa sidaa yidhi sala allahu calayhi wasalam. laa ilaaha ila allah qofkii ku khaatimaysta oo hadalkiisa ugu dambeeya ee afka ka soo baxaya ay noqoto waa ahlu janno ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam. waa goorme? waa haddaan raacno, waa haddaan ku dhaqanno, waa haddaan dhegaysiga tawxiidka iyo diinta badino ayuu allana waafajinaa subxaanahu wa tacaala. yuthabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunyaa iyo aakhira labadaba ilaahay waa waafajiyaa. ilaahay waa ku sugaa kelimada haabitada ah. laa ilaaha ila allah ayuu dhahaa qofka aan heesaha dhegaysan jirin. laa ilaaha ila allah ayuu dhahayaa qofka aan muusiga ku socon jirin. laa ilaaha ila allah ayuu dhahayaa qofka aan taageeri jirin. cabdullaahi ibni cumar oo socda maalin asagoo indhool ayuu soo socday ayaa la yidhi. waxa uu soo maray meelay muusig markaa ka daaran tahay. dhagaha ayuu faraha gashtay ilaa uu ka gudbay. axadkii la socday ayuu yidhi weli ma maqlaynaa mise waa baaba'eed? markii loo sheegay inay go'day ayuu faraha dhegaha ka bixiyey. dhegihiisa ayuu ka cabsanaa in rasaas naareed lagu shubo. walaqad dara'naa lijahannama kafiiran min aljinni waalinsi. jahannama ayaan khalaqnoon abuurnay. waxaan u abuurnay wax badan oo jinniga iyo insiga ka mida ayuu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. wax badan oo jinniga iyo insiga ka mid ah ayaan jahannama u khalaqnay. sababtu maxay tahay? lahum quluubun laa yafqahuuna bihaa. quluub ayaa la siiyo diintay ku fahmi waayeen ilaa heesahay ku fahmeen keliya. walahum acyunun indha ayaa la siiyey oo laa yubsiruuna bihaa. xaqa iyo diinta ay ku arki waayeen ilaa fanaaniinta iyo jilayaasha maahane. walahum aadaanun dhaga ayaa la siiyey oo laa yasmacuuna bihaa. ay dhagaha wax ku maqli waayeen oo diinta ay ku raaci waayeen ilaa inay heesaha ku dhagaystaan maahane. ka warama kuwaa xaaladooda ulaa'ika kal ancaam. waa xoolo oo kale ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. bal hum adal ayagaasa ka dhumid badan xoolaha. ileen xooluhu heesaha ma dhegaystaan. cajalooyinka heesaha sooma gataan. rabbigood ayay caabudaan. rabbigood ayay u tasbiixsadaan. wa in min shayin ilaa yusabbixu bixamdi. rabbigood ayay u tasbiixsadaan walaakin laa awoodi waayeen sida xoolaha oo kale inay noqdaan. xataa haddii xoolaha oo kale ay ahaan lahaayeen way ka fiicnaan lahayd oo alle wuxuu raacsiiyey. bal hum adallu ayagaa ka dhumid badan. ulaa'ika hum alghaafiluun waana kuwa markaa ilowsan. diinta allay ilowsan yihiin. xaqa ayayse raaceen oysan ku camalfalayn. walaalayaal dadaala oo heesaha qurunkooda iyo waxyaabaha alla uusaa u xaaraantinimeeyey ka dhaqaaqa.
war si fiican ugu dadaala si ilaahay idinkugu suga diinta oo laa ilaaha ila allah markaad dhimanaysaan oo idinkugu suga adduun iyo aakhiraba. adduun waxaa loola jeedaa ayaa la yidhi waa sakaraadka agtiisa. aakhirana waxaa loola jeedaa waa marka qabriga la galo oo markaa su'aalooyinka la weydiinayo. wayudilu allahu alظaalimiin, ilaahay dhaalimiinta waa dhumiya oo waa ka dhumiyaa tawxiidka. war gabdhahow ilaahay ka cabsada, war joojiya heesaha iyo cajalooyinka aad maqrib walba wadataan oo aad kala amaansanaysaan ood kala qaadanaysaan ood soo ijaaranaysaan. joojiya oo ilaahay ka cabsada. gabar ayaa jiri jirtay aad iyo aad heesaha u jeclaan jirtay. mar walba heesaha ayay dhegaysan jirtay, mar walba heesaha ayay samaysataa. waxay daarataa cajalooyinka heesaha. fanaan ma jira ilaa way xifdisay magaciisa iyo meesha uu ka yimid iyo goorta uu curintaa iyo waxyaabahaa sameeyey. hees ma jirta ilaa laxankeeday taqaanaa, waxyaabaha iyo sida looga laxmiyo ayay taqaanaa dhammaan. aad iyo aad ayay u jeclaan jirtay. kushiinka markay ku jirta ama madbaqa ayay heesaha qaadaa ama daaradaa. guriga markay xaaqaysay samaysaa. waa in badan oo gabdhaheena ka mida sida ay maanta yeelaan. akhiiran iyo gabagabadii ayaa gabadhii sakaraadka ku soo xaadiray. waxaa la gaaray waktigii ajasha. camal fiican inay samaysataa fiicneed ma samaysanin. rabbigeed inay wax u hormarsataa fiicneed uma hormarsanin. rabbi ayay nacdo, fanaaniintay jeclaatay. qur'aankii kalaamka allay nacday, heesahay jeclaatay. fiiriya sida alla ku abaalmariyey subxaana wa tacaala. gabagabadii ayaa lagu abaalmariyey in sakaraadkii soo xaadiro. dadkeedii ayaa u soo aruuro meeshaa laysugu yimid. culimadii ayaa timido waa ag fadhiisteen. kelimada tawxiidkaa loo laqimo. waxaa la yidhi laa ilaaha ila allah dhe. ayaduna waa kari weysay. laa ilaaha ila allah qofkii ku camalfali jiray oo raaci jiray oo yaqaana macaanideeda iyo shuruuda ay wadataa ku celceliya marka uu sakaraad yahay. amaa axad heese ka caado dhigtay, filime iyo aflaan ka caado dhigtay, riwaayado iyo kusheertooyin ka caado dhigtay iyo inuu masrax mar walba gala uu daabado. laa ilaaha ila allah see u dhaha waa waxaan suuragal ahayn. gabadhii waa sakaraad oo nafteedaa la soo aruuriyey. jilbahaa laysugu keeno waa laga soo qaaday. ma kari karta inay rikoor dambe heese ku dhegaysato. ma awoodi karta inay mar dambe baxda ay siiriyaha ka soo qaadato cajalooyin heesa ah. maanta wixii ka dambaysa adduunkay ka rawaxaysaa, aakhiray u socotaa. maanta wixii ka dambeeya rabbigeed hortiisaa la geynaa. maanta wixii ka dambeeya dhibaato fara badan ayay la kulmi doontaa. laa ilaaha ila allah dheh ayaa la yidhi. laa ilaaha ila allah ayaa agteeda lagula celceliyey. ileen horay ayay u dhihi weysay ayadana. maca daalika askeeda waa kari waayey. kelimada tawxiidkaa askeeda waa soo qaban waayey. dadkii meesha goobjooga ka ahaa ee xaadiray waxay dhaheen afkeeda waxaan ka weynay hadal aan ahayn. labadii walaalo ah ninkii lacag leh ayaa weyn. sidaa ayadoo dhahaysay xayaatada uga baxday. waa suu'ul khaatima. labadii walaalo ah kii lacag lahaa weyn ayay ku celcelinaysay. taasaa diin u ahayd. nafta ayaa uga baxday. ayadoo heesaysa ayaa la dhaqay. ayadoo heeskaa afkeeda ku dambeeya ayaa la qaadoo qubuurta loo daadihiyey. ayadoo afkeeda uu ku dambeeya heesaha ayaa qabriga la dhigay. ayadoo heesaysaana laga soo bixin doona waciyaadu billaah. sidaa darteed ayuu rasuulku yidhi qof kasta waxaa lagu soo bixiyaa calaa maa maata calayhi, wixii uu ku kor dhinta dushiisa. war walaalayaalow idinkoo heesayaa laydin soo bixinin ee heesaha joojiya. qalbi madoobaad ayuu leeyahay. qalbiga diin alle iyo heese islama galaan ee aad iyo aad u dadaala oo rabbigiin ka cabsada. ilaahay asagoo noo tilmaamaya khatiirada iyo khatarta heesaha ay leeyihiin, dhibka iyo mashaakilka heesaha ay leeyihiin iyo sida uu nooga digayo fiiriya. allah subxaana wa tacaala kitaabkiisa munazalkaa waxa uu ku yidhi waashucaraa'u yattabicuhum fanaaniinta, abwaaniinta iyo kuwa heesa intaba waxaa raaca kuwa qaawiinta ah. kuwa dhunsan ayaa raaca ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. waa shaaciriinta, waa abwaaniinta, waa heesaayayaasha. kuwa baadiyaysan ee shayaadiinta ayaa raaca.
intaa ka hor ayuu alla noo tilmaamay subxaana wa tacaala rasuulka waxyaabaha uu sheegaayo iyo waxyaabaha uu la yimid inaysan fanaannimo iyo shicir iyo waxyaabo kale ahayn. ilaah wuxuu yidhi qaryo ma halaagin ilaa lahaa mundiruun, kuwa diga ayay lahaayeen. dikraa wamaa kunnaa dhaalimiin, digniin ayaa la siin jiray, waa la waanin jiray, anaguna dhaalimiin manihin. wamaa tanazzalat bihi shayaaiinu wamaa yanbagii lahum wamaa yastatiicuun, mana awoodi karaan mana u habboona ayuu yidhi. ileen maqalka ayay ka culus yihiin. rasuulkii allow ilaahay micigiisa alla kala ha yeelin. falaa tadcu maca allaahi ilaahan aakhara, ilaah kala ha samayn, ilaah alla aan ahayn hala imaanin, oo fatakuuna min almucadabiin, hadhow aad ka mid noqoto kuwa la cadaabo. qaraabadaada udig kuwa kugu dhow mu'miniinta dhinacaaga u raarici. waa liman ittabacaka min almu'miniin, hadday ku caasiyaan hadday xaqa diidaan faqul innii barii'un mimaa tacmaluun, waxaad dhahdaa anigu beri ayaan ka ahay tolkeeyo waxa aad samaynaysaan. heesaha aad ku dhex jirtaan ayaan beri ka ahay, xumaanta iyo munkarka aad samaynaysaan ayaan bannaanka ka taaganahay. haddii aad isdhahdo tolkaaga kama maarantid, sidee dhibkaduu ku soo gaarayaa kuu soo gurmin. intaa haddaad isdhahdo ayaguna ay macaasi ku jiraan, waxba dhibaatayay ku gelin. ee watawakkal cala alcasiizi alraxiim, talada u dhiibo allaha casiiska ee raxiimka ah. waa kee alladii yaraaka xiina taquum, waa midka ku arkaya midka markaad istaagayso, iyo wataqallubaka fi saajidiin, sujuudda markaad ku dhex gadgadoomayso waa allaha kuu jeeda. innahu huwa asamiicu alcaliim. hal unabbi'ukum calaa man tanazzalu ashayaatiin, ma idin warama oo ma idin sheega shayaadiintu kuwa ay ku soo degaan. waxay ku soo degaan tanazzalu calaa kulli affaakin afiim, waa mid dembiilo ah dhammaantii oo been abuurad badan. ileen heesuhu kulligood waa kidbi iyo been, waxa ay ku hadlaan waa waxaan waxba ka jirin. waxyaabaha ay keenaan waa hadal ilaahay aan ogolayn, waa shay zuur iyo ibki iyo waxyaabo kale oo baatil ah. kuwa ayay shayaadiintu ku soo degaan. fanaaniinta iyo shayaadiintu waa walaalo. tanazzalu calaa kulli affaakin afiim, yulquuna asamca wa aktaruhum kaadibuun, samciga iyo maqalka ayay ridaan oo ay u tuuraan, badankoodana waa beenaalayaal ayuu yidhi allah subxaana wa tacaala. wax aan jirin ayay ku hadlaan, wax aan suuragal ahayn ayay ku heesaan, wax ilaahay ka caroonaya ayay ku tilmaamaan. qur'aankay riwaayada ku dhigaan, rasuulkay ku heesaanay muusi ku kortumaan. arrimooyinkaasoo dhan ayaa lagu yaqaanaa. waashucaraa'u yattabicuhum alghaawuun, shucarada iyo fanaaniinta, abwaaniinta iyo gabayaalayaasha kulligood waxa raaca waa kuwa gaawiinta ah. waa inta dhunsanuun diin ku soconin, waa dadka daacada alla ka tegey, waa gabdhaha diinta alla ka ridoobay, waa dhalinyarada soo baxday badankooda raacee shucarada iyo fanaaniinta taageera. alam tara annahum fii kulli waadin yahiimuun, ma arkin miyaa inay waadi kasta iska dhex dabaalanayaan, mar walba waadi ayay ku dhex sugan yihiin. wa annahum yaquuluuna maa laa yafcaluun, shucarada iyo fanaaniinta waxaysan samaynin ayay ku hadlaan. beerkaan idiin bedeli lahayn, saasaan idin yeeli lahayn, arrintaasaan idin samayn lahayn, cirkaan idinla duuli lahayn, saasay ku leeyihiin. gabdhaha ay rabaan inay jacaylkoodii arrimooyinkooda kale ay ku heesaan. wa annahum yaquuluun, waxa ay ku hadlaan waa maa laa yafcaluuna, waxaysan qabanayn oo aysan samaynayn. indhaha inay isu bedeli lahaayeen, qalbiga ay isu bixi lahaayeen ayay sheegayaan oo kibbi iyo been ah, oo runtu hadday timaado ay diidi doonaan. walaalayaal kuwaa xaaladoodu waa sidaa. ee in badan ka digtoonaada oo iska ilaaliya waxa lagu magacaaba heesaha. rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, laabta qofka inay buuxiso lian yabtali'a jawfu axadikum, axadkiin jawfkiisa iyo laabtiisa qayx iyo malax inay buuxiso dhiig wadata ayaa ka khayr badan min an yamtali'a shicran, intii shicir iyo heese iyo waxyaabo kale qalbigaaga buuxin lahaa. walaalay intaad shicirka iyo heesaha aad xifdin lahayd, kitaabka alle maxaad u xifdin weysay? kitaabka rabbi maxaad u raaci weysay subxaana wa tacaala? war xaqa maxaad ugu socon weysay ood ugu aqrin weysay? codka rabbi ku siiyey kitaabka rabbi aad qur'aanka ugu qurxin weysood ugu tajwiidin weysay. war sidaa yeela intii heesaha dhegaysan jirtay iyo intii hadda ay u yaala cajalooyinkooda iyo inta jecelow tawba keena maanta wixii ka bilowda. war cajalooyinka iska daadiya ama khayr ku bedesha, dhegihiina ka tirtira oo ka sifeeya,
qalbigiina iimaanka iyo nuurka iyo qur'aanka alla ka buuxiya intaa haddaad samaysaan alla xumaan kasta wanaag ayuu idinku bedelaa intii heesaha u arki jirtay wax xun inay yihiin ama aan dhegaysanin ama aan raacinow idinkuna dadaala oo ilaahay waafajintiisa iyo mahad alla ayay tahay xaaladaase rabbigiin ugu mahad celiya waa tawfiiq alle mar kastana ka barya inuu alla idinka madoobeeyo subxaana wa tacaala ilaa xadiisulqudsi ayuu ku yidhi qof allaala qofkii khayr sameeya ama khayr hela falyaxmidillah ilaahay ha ku mahdiyo waman wajada hayra daalika qofkii khayr waxaan ahayn hela waa share asagana yuusan dagaalin ilaa naftiisa maahane cid kale yuusan dagaalin ayuu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam maanta heesuhu waxay noqdeen waxaan dhagaha ugu raaxayno waxaad maqlaysaa arrimooyin fara badan oo shay laga naxo oo laga murugoodo oo tiiraayo qofka iimaanka leh ama qalbigiisa wax yar oo iimaana ku jira wax uu ka qoomameeya ama uu ka xumaada markaa ah waxaad maqlaysaa ama aad lagu dhahayaa ama qasab lagaaga dhigaa inaad heesaha dhegaysato inaad muusiqa dhegaysato waxaad nala dhegaysataan ayaa maqlaysaa oo lagu dhahaa muusiqadii macaani muusikadii kidaa ahayd iyo arrimooyin noocaas ah war muusiq macaan nebiga nooma tilmaamin war waa shay xumaan ah oo baatila oo xaaraan ahee ka dhaqaaqa war wax badan ka fogaada oo ilaahayna ka barya aanana ka barina inuu rabbi ka tirtira koonka iyo sida maanta uu u batay inuu ilaahay u baabi'iyo subxaana wa tacaala waxaad maqlaysaa hobaladii codka fiicnayd lahayd heesteeda qiimaha badneed nalagula raaxaysto oo sidaa yeela goorma hobalada codkeeda wax fiican noqday war kalaamka alla muu ka qiimo badan yahay dhammaan waa wada fadhiisanaa waa u riyaaqnaa waxaad samaynaysaa dadkiiad arkaysaa oo isdhaqaajinaya oo khushuucaya oo waxyaabo badan samaynaya gobol indhahooda biyo uga soo qubanaya allaahuma ma hal suurad la aqriyo cadaab ka sheekaynaysa janno ka sheekaynaysa qof walbaa sheeko gooniye ayuu gela qabiil ayuu ka sheekaynaa qaadkiisuu ku noqonaa ama hobaladii codka baxsaneed markay soo gasho codkeeda ma baxsanee wuxuu noqonaa waxyaabo kale iyo si kaluu markaa iska dhigaa war walaalayaal ilaahay ka cabsada subxaana wa tacaala ha badinina hadalka aan xuska alla ahayn hadalka badan ee xuska alla aan ahayn qalbiga ayuu qallajiyaa ayuu yidhi nebiga dadkana alla agtiisa waxaa ugu fog dadka qalbiga qalalan leh qalbigeeniyaa qalalay qalbigeenii ayaa engegay oo wuxuu noqday dhagxaan oo kale balse waa kasii adkaaday sida ilaah tilmaamay subxaana wa tacaala qalbigooda ayaa qalalay oo wuxuu noqday fahiya kalxijaara aw ashaddu qaswa ama qalaylka waa ka daray ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala waayo dhagxaanta waxaa ka mid ah kuwa soo hoobanaya cabsi alle kuwa jeexjeexmaya oo biyo ka soo baxaya kuwa biyo ka soo burqada intaba way ka mid yihiin ayuu dhahay alla subxaana wa tacaala haddaba maxaa heesaha aan ugu khushuucnoon qur'aanka ugu khushuuci weynay dadka qur'aanka miyaysan ku tadabburin afalaa yatadabbaruuna alqur'aan am calaa quluubin aqfaaluhaa qalbiga may ka qufulan yihiin ayuu dhahay alla subxaana wa tacaala hoos miyuu qur'aanka u geli la'yahay war gaaladaa ugu wacan waxay damceen inay muslimiinta qur'aanka ka siidaan 3 waxyaabood intay muslimiintu haystaan ayay dhaheen yuhuudda maray shireenay baarlamaankoodu isugu yimideen lagama guulaysan karo ilaa in laga tirtira maahane midda koowaad waa jumcaha iyo salaada jimcahay dhaheen intay ku dhegan yihiin kama guulaysan karno midda labaad waxay dhaheen kacbada inta ay taalo kama guulaysan karno midda saddexaadna qur'aanka iyo kitaabka qur'aanka intuu yaalo saddexdaa intay muslimiintu ku dhegan yihiin annagu manihin kuwa markaa ka guulaysan kara inay weerar ku soo qaadaanna way awoodi waayeen intaa ka gadaal ayay dhaheen kitabaha qur'aanka aan soo aruurino dhammaan aan gubno waxyaabo kale aan ku samayno mid caaqilo ayay kamida ayaa ku jiray war canuga yariiskee baadiyaha jooga korka xifdisan baa la yidhi haddaad jexjexdaan ood gubtaan xataa maba samayn kartaane haddii la waayo kutubaha qur'aanka ah ilmaha yaryarkee muslimiinta ah kuwa da'da yare 7 jirkii 4 jirka ah ayaa korka yaqaanoo ka shuba sidaa ayay yihiin jumcadana saasoo kale qod ay imtixaana kacbadana waa la mid saddexda waxay ugu talagaleen ama ay sameeyeen waxay markaa uga hortagi lahaayeen qur'aanka laga bilaabo waxay dhaheen waxyaabo kale dadka aan ku maaweelino aan tusno waxyaabo qur'aanka ka fiican inuu jiro gabdha fanaaniina oo heesa raga heesa oo noocaas aan keenno aan u tusino kitaabka qur'aanka ah inuu dulliyahay qur'aanka aan qiimo lahayn cabsi dhacay oo laga soo tagay inuu yahay ilbaxnimada xaqa ah ee dhabta inay tahay heesaha oo la dhageysto fanaaniinta oo la barto
meelaha ay ku dhasheen oo la ogaado maca daalika gabadha maanta 410 taqaanaa heeso iyo ka badan xifdisan haddii la dhaho nebi maxamed xaguu ku dhashay lagama yaaba inay sheegto amaa shaydaamada fanaanada ah ee heeskeeda ay xifdisan tahay waxaa laga yaabaa inay taariikhdeeda kaaga waranto meesha ay ku dhalatay halka ay joogto waqtiga ay fanka soo gashay wixii oo dhan ay taqaanaa rasuulkii alle ayaa laga soo leexiyey iyo qur'aanka waana mabda ee yahuuddu markaa ka dambayso kacbadu waxay dhaheen aan u kala qaybino kooxooyin siyaabo kale aan u tusino baasaboorooyin iyo waxyaabo kale aan tusino oo dadka lagu kala farqiyo oo lagu kala geegeeyo ilaa in badan ayaad arkaysaa maanta oo kacbada intay xaj u yimaadaan maxaya ilaahay ma nagu soo celiyo subxaana wa tacaala sida loo galo oo dadka meesha jooga ay u gelayaan darteed xaaladaana waa waxyaabo yahuuddu ay ka dambayso maxaa soo haray jumcadii ayaa soo hartay filim walba iyo hees walba oo macaan waxaa la sameeya sida macaanka ay ku tilmaamayaan ayaga habeenka jimcaha soo gelayo waxaad maqlaysaa caawa bacdanay jimco tahay waxaan ugu talagalnay riwaayadii qiimaha badnayd heesihii heblaaye ahayd fanaaniinta ay ku tilmaamaan inay u qiimo badan yihiin haddaysan ka toobatiin naartay ku weynaan doonaane inay yihiin kuwa loo bandhigo maca daalika habeenkii oo dhanaa heesaha lagu soo jeedaa jumcaha aan loo kici karin ilaa axadka noogu fiican markuu imaamku uu akrinayo khudbada labaad aan laga yaabaa asagoo salligiisa wata inuu markaasi carro meeshu tago saasay xaaladu tahay ee walaalayaalow dadaala rabbigiinana ka cabsada idaacadaha bixiya heesaha rabbigiin ka cabsada ilaahay u soo rujuuca subxaana wa tacaala wallaahi maalin aan maanta ahayn ayaa laydinka su'aalaa qur'aanka alla qiimeeya oo shayaadiinta qowlkooda hoosu dhiga war dadka ganacsatada ah ee jooga meelaha wax laga cabo iyo meelaha wax laga cuno rabbigiina ka cabsada idinkana dadka ka dhaafa waxyaabaha aad dhagaha u gelinaysaan ee heesaha iyo waxyaabaha lamidka ah darawalada BL-adu dhammaantiin ilaahay ka cabsada subxaana wa tacaala war ka dhaafa dadka waxyaabaha aad ku samaynaysaan rikoorada aad u gelinaysaan heesaha iyo xumaanta war wallaahi waa layska su'aalaya maalin ayaa la tegi doonaa maal iyo awlaad iyo qabiil aysan wax anfacayn adigoo qaawan rabbiga hortii lagu geyn doono subxaana wa tacaala intaan maalintaan la gaarin war qof walbow dadka taageera oo diinta ku taageero ku saacida war dadku waa inay ducaad noqdaan qofka diibitada jooga ama meelaha wax laga cabo asagoo shaqadiisa ku jira ayuu daaci noqon karaa war cajaladaha xaqa ah ama diinta ka hadla qof kasta oo kuu soo gala haddaad u daarto waxay tahay adigoo shaqadaada ku jira dacwadii gudatay war qofka baabuurka wadow adigana saasoo kale in allaala inta kuu soo raacday rakaaba mar allaala markaad u daarta xaqa iyo diinta iyo aayadaha ilaahay iyo qur'aanka iyo wacdiga adoo shaqaysanaaya oo adduunkaaga kasbanaya ayaa dadkii ugu yeertay dacwada 2 ajir ayaad ku heli doontaa iyo ka badan intaa laakiin ka warrama habeen iyo maalin haddii heese ay noo saaran yihiin war nasiib xumida maantana haysata qur'aanku waxaan u aaminsannahay keliya in wax lagu furto oo lagu sabagabeeyo keliya idaacadaha gobolka mida fiiri qur'aankay ku furtaan waana lagu khatimaa inta u dhaxaysana shayaadiin iyo shaydaan iyo faasiqiin iyo fusaaq ayaa kulligood ka haysta oo waxaan wax ka jirin oo dadka wanaag aan u ahayn oo khayr aan u ahayn oo janno aan u horseedayn cadaab aan ka difaacayn qabriga waxay ku nabadgeli lahaayeen aan looga sheegeen ayay noqonaysaa bacdana subax wanaagsan ay tahay lagu leeyahay waxaan ku furfuranaynaa aayadaha alle markay dhamaadaan ayaa lagu leeyahay allah nagu anfaco waxaan u jileecaynaa ama aan aadaynaa dhankii sugaanta dhankii heesaha tabacnaa wax noocaas oo kale maxaa walaala ka dhigay qur'aankii heesaha walaala ma ahayn culimada iyo fanaaniinta maxaa walaaleeyey shiiqii ayaa ka baxoo wacdiyey heblaaye iyo hobaladii heesiisana way ku xigtaa subxaanaka yaa ilaahay warsaad ha yeelina walaalayaal wax badan ilaahiina ka cabsada oo xaqa ku socda oo diinta ilaahay sidaa yeela haddaad xaqa iyo sida uu yahay aad u fulisaan una raacdaan wanaag ayaan adduun iyo aakhira ku gaari doonaa haddaba dadku waa inay sidaa sameeyaan dadku waa inay khayrka iyo wanaagga badiyaan ayna ka tagaan arrimooyinka alle ka xaaraantinimeeyey subxaana wa tacaala wa min annaasi dadka waxaa ka mida man yashtari lahwa alxadiidi mid iibsanaya ama iibinaya xadiidka iyo waxyaabaha lagu daahdaaho ee laqwiga ah ee xumaanta ah ayuu yidhi ilaa subxaana wa tacaala heesaha qofka ka ganacsada oo ka bayac mushtaraka sadkiisu waa xaaraam qofka soo iibsanaya oo dhegaysanayo ilaahay ka cabso haddaadan ka cabsan iskala dhaafin u diyaar garow rasaasta iyo dhacaanka iyo waxyaabaha kale ee naarta lagugu talagalay ee alle uu kuu sameeyey subxaana wa tacaala dadka ayagu taageera oo jecelow idinkana ilaahiina ka cabsada heesihii maanta waxay noqdeen hanuunin waa sida ay gaaladu rabeen qur'aankii maanta wuxuu noqday wax dib u dhac iyo khasaara dadka ku abuura adduunka waxa kurbada iyo welwelka ku haaya dadka qur'aanka haysta inay yihiin waxaad maqlaysaa hobaladii
hanuuninta maxay wax ku hanuuniyaan waa heeso waa majaajilooyin waa waxyaabo kale waa niman iyo naago isdhexbooda waa gabdho caariyaadoo masraxa soo hor istaaga waase taasaa waxay noqotay hanuuninteenii dadkiina hanuunin lahaa ayaa sidaa noqday ilaahu maanta xaggee hanuun ka raadsanaa ilaahu adduunka maanta fitan iyo dhibaato ayaa badatay rabbiyow maanta fitantii ayaa aad iyo aad u badatay waxaa la gaaray zamankii la maraayay ama zamankii la tilmaamay oo qofku intuu arlada korkeeda fadhin lahaa inuu hoosteeda ku jiro ay ka khayr badnayd rasuulku wuxuu yidhi zaman ayaa la gaari doonaa qofka uu soo baxo uu ku wareegsado qabri nin ku duugan yahay uu yidhaahda halaagaygiiyaaw shalaytadayday ninka meeshaan ku jira oo kale maxaanuu ahaan waayey kama aha ninka meesha ku jira wanaag iyo janno uu haysto weli ilaah uu ahaa kama wado wax kale ma aha laakiin waa fitan uu ka cabsanaayo fitantii ayaa maanta zaman ayaa la gaari doonaa xalaashu ay xaraam noqon doonto xaraamtuna ay xalaal noqon doonto ayuu yidhi sallallahu calayhi wasalam zaman ayaa la gaari doonaa dadku aysan u kala aabayeelin awa min xalaalin awa min xaraam waxaan xalaal miya mase waa xaaraam balse raadinay say gacantaada ku soo gashaa keliya maanta riyaal walba iyo doolar walba iyo shilin walba sidii gacanteena kusoo geli lahaa waa u raadinay heesa ha lagu helo xumaan ha lagu helo baatil ha lagu helo xaaraam ha lagu soo kasbo laakiin cid raadinaysa raadi ahaashada alle ma jirto subxaana wa tacaala maanta waxaa taala say gacantaadu wax kusoo geli lahaa ilaahay weligiis yuusan raali noqon subxaana wa tacaala arrinta noocaas ahna arrinna anfacaysa ma aha abubakrin sidiiq ayaa wiil lahaa ghulaam ah waxa wuxuu u samayn jiray kharaaj ayaa la yidhi ama qaraab maalin walba wax ayuu u soo qaraabi jiray wiilkaa waxa uu keena ayuu iska cuni jiray abuubakarna markuu u keena waa su'aali jiray oo wuxuu dhihi jiray xaggeed ka keentay meeshaasaan ka soo kasbay waa cuni jiray maalintii dambe ayuu ghulaamkii baxay waxbuu u soo kharaajay ama u soo qaraabay qaraabkii ayuu u keenay markuu u keenay ayuu cunay abubakar maalintaa ma su'aalin radiallahu canhu wiilkii ayaa yidhi abubakarow ma taqaanaa waxa aad cuntay maya ayuu yidhi markaasuu dhahay wuxuu ahaa intii aan adiga kuu imaan ka hor ayaan waxaan samayn jiray kihaanada waxa lagu magacaabo ama kaahinnimada dhulka ayaan wax ku dhigi jiray oo waa faalin jiray saa darteed faalsigana ma aqaanin ee dadka waa qiyaani jiray nin aan lacag ku lahaa ayaa jirta maanta ayaan la kulmay oo aan ka soo qaatay kasabka aad maanta cuntay kaas waaye abibakar farta ayuu geliyey carabka ilaa dhan xaniga iyo dhuunta uu gaarsiiyey wuxuu soo qayey uu soo mantagay ayaa la yidhi maa fii batni waxa calooshiisa ku jira oo dhan raalli ahaashuu raadinaa naxariis allow dalbaa jannada inuu helo raadinaa naarta in laga badbaadiyo danaciisu yahay anaguna maanta waxaa raadinayno ma aha raadi ahaashee waxay tahay sidii wax loo heli lahaa in la helo wixii rabbi raalli ku nahaa iyo wuxuu ku noqonin waxay raba ha noqdaano wa raadi ahaasha allah khayr badan wa ridwaanun min allahi akbar raadi ahaashada alle xaggiisa taale ayaa weyn oo wax kasta ka weyn xataa jannada ayadaa ka weyn ee rabbigiin ka dalba aadna u dadaala ilaahiinana ka cabsada war waa inaan diinta alle ku dadaalnaa oo xaqa aan raacnaa oon fulinaa oon taageernaa gabar masaariya ayaa jiri jirtay aabaheed ayaa aad iyo aad ugu dadaalay sida ay ka sheekaysay markaasay tiri wuxuu aabahan sameeyey aad iyo aad ayuu qur'aanka noo jeclaysiiyey anigu waan xifdiyey ayay tiri qur'aanka kariimka waana tifla anigoo gabar yar markaa ah ayaan xifdiyey aabahay ayaa nagu dadaalay oo qur'aankana xifdi siiyey oo markaa aad noo jeclaysiiyey aabahayn ayaa sidaa yeelay tiri maca daalika wuxuu dhihi jiray qofkii hal sadar oo qur'aanka ka mida xifdiya gurush ayuu markaa leeyahay صفحة قفكي حفظية شن قروش أيا لصينيا جزء كامل قفكي حفظية جني أيا لصينا مع ذلك قرآن كأيان حفظية عابهي أيا حفظية ونقود ذلك توان تجويدية عدكي جنوحو أها أي تري عد آتي أكو بحثا أوفي عن قرآن كان كعديناي وكو أفريناي حمانت أيو نجا إلالي عابهي وانا نقود ذلك ودين تعالي أيو نقود بوبابي رسولك وحودتك أمري جري أسكو إني كو قرحيان قرآن كمركا لأفريناي من لم يتغنى بالقرآن قبك أن سوكي سكونا جنين أما أن سفي عن أو أقرن قرآن كفليس منا أنا جانا جمت معهن أيوده جري قبل سيري أي نقطي عكير أي آدي أو بحثنا أو فينا لكن صاحب حنحن أو فنانين أي مركي ضمب أي لطي عكير قيمها بدن مركي أركان أو قيمها أي قرحة أي خير كبدن دين تعلن أي أديك سنيسو أي مركي ضمب وحي كتر جلس قبلها مسكينة دعاء إلي كسر لحيان دنك قرآن كأنسو
soo leexiyaan dhanka fanka iyo heesaha iyo aqniyada meesha inay u soo leexiyaan ayay ku talagaleen xaqiiqdii wayna ku guulaysteen si wanaagsan ayay ugu guulaysteen ileen mar walba saaxiibada xunxunka ah in la iska ilaaliyo ayaa fiican rasuulku wuxuu yiri qof walba qofka uu ka saaxiib dhiganayo ha iska fiiriyo falyandur axadakum ilaa man yukhalil qofka uu ka khaliil iyo saaxiib dhiganayo qofku wuxuu yeeshaa calaamad wuxuu yeeshaa calaa diini khaliili saaxiibkiis diinkiisuu yeeshaa ee qof walba iska fiiri qofka aad ka saaxiib dhiganayso walaalay iska ilaali qofka aad ka saaxiib dhiganayso gabar heesaha jecel hala saaxiibin haddaad ahlu diin tahay ilaa inaad diinka u sheegayso rabta inaad ka soo leexiso maahane sidaa markaa ku soco fiiri gabadhan wixii ku dhacay intaa ka gadaa waxay ka soo leexiyeen ayaa la yiri waxyaabihii iyo qur'aankii iyo wanaagii ay ku jirtay waxayna u soo leexiyeen dhanka heesaha ilaa markii dambe mar allaala markay dhex timid ay iska bedeshay magaceeda إفراج الحسري أيا لديه ياسمين خيام أي مجا بحثتي ولا ويدي سببت أي مجا إستجاب الشيء كما بدلين أي ترى حقيقة مركز لفيريو كابتن عشان تريد يكو قرنتا ورقد على الشباب باسبورك أيو كفرية أعطيه مجا إيسا إيه مجا أي جرا لكن أنت وحن ربا تضبط ولا تجعلنا واجرين إن أعطيه أن سمعت حمائي وحيابها كإيراليو مع ذلك لجمع يابا إن كسولو تنكر هيصها يفنج إن المركز كجرو سدا أي حالة هذا مركان نقطي حتى بقف والبودلان إلى هذا كعب سبحانه وتعالى ورقلبي جينا هسا كبحية أو كنظيفية جبتها يرير كامر لبات ير إيسو كوريا هي اللي يرضى وحن إذن كبواب لها أنا وحبا إذن كل الدربارما إلى الدين قبصتان إلى القرآن كبرتان أو دقيستان إسكنا إلى لسان هسها فسق حرامتي وحيابها كله والشيطان كوا عدو عدو كدكتا والشيطان كوا عدو ستي عن عذاب النبي سيعبها ورهسو وقت الشيطان iska ilaaliya mar allaala markii cadaabka laga soo raacdeeyay ee la soo buriyay ayuu asagana ballan qaaday inuu bani aadamka dhumin doono wuxuu yiri ilaahayow iga warab midkaan aad dusheeda ka karaamaysay haddaad idib tigta ilaa maalinta aakhiro la axtanikanna durriyatahu ilaa qaliila ilmihiisan dacyayn doonaa waa baadiyayn doonaa ilaa in yar maahane ilaah muxuu yiri qaala dahab faman tabicaka minhum bax qofkii ku raaco ayay ka mid ah fa ina jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfuura jahannama ballan noo ah abaalmar كامل واستفزز من استطعت منهم بصوتك في جسو وقيل مثل صوت كريكا تعكايا واجلب عليهم بخيلك ورجلك كرات ايال يري فرضها يلغها سدايين وشاركهم في الأموال والأولاد المها أولادي مالك الله قيس وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ويابو شيطانك يبوجي سنة ما أهن إلا كذا ما أهن سوكي صالقوعا رواية هبلا جسته هستي ناسا صوبح ذي إلا موابلا لو سمي هسا كي لبضكن إيا كذا كي حالة صداءها ورصداها يلينا قرآن لقن أسبدلين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هرتي سئي جراشي سعن باطل إيماني أيا جري دلالة هذا هو حرام إيكا درقة ضمان ربي أيان كبرينا سبحانه وتعالى إنه حق النوافجية هذا هنا نجا إلاليو شرابكي شرابين تجيرنا إنه هذا كم ذوبي قرآن كتصيو ولا ليال دلالة إنت كهريسنا وبالله توفيق والله سبحانه وتعالى أعلم.